hogaamiyaha Atletico de Madrid xilligan wuxuu hawada u mariyay hanjabaad kooxda Real Madrid ka hor kulankooda caawa Champions League wuxuu leeyahay guul ama geeri ay sheekadu tahay. Simeone wuxuu doonayaa inuu jabiyo rikoorka Real Madrid ee Champions League waxaan guul ahayn kuma qancayno waxaan geli doonaa dagaal aan dheeftiisa la dhaylsan doonin. Tababaraha Atletico Diego Simeone ayaa si cad u muujiyay rabitaankiisa inuu soo afjaro guuldaradii hore ee kooxdiisa kala kulantay Madrid tartanka Champions League. Atletico ayaa hore ugu guuldareystay Madrid 4 jeer 11 xilli ciyaareed la soo dhaafay ku jiraan finaaladii 14 ilaa 16. Xilli ciyaareedkan Atletico ayaa ku jirta qaab ciyaareed wanaagsan iyagoo kaalinta labaad kaga jira La Ligaha 2 dhibcood ay ka sareeyaan Madrid. Simeone ayaa muujiyay kalsooni ku aadan awoodda kooxdiisa isagoo sheegay in kastoo Madrid ay leedahay taariikh weyn, Atletico ay tahay koox si joogto ah u koraysa oo leh awood ay ku gaarto guulo waaweyn. Weeraryahanka 25 jirka Julian Alvarez tan markii uu yimid City ama ka soo dhaqaaqay kooxdaasi ay dhaliyay 21 gool ayaa noqon doona furaha rajada Atletico hogaamiye Simeone. Macalinka ayaa carab ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in la sii wado horumarka iyo taageerida loo fidinayo Alvarez iyo kooxda oo dhan. Kulanka caawa ayaa noqon doona mid muhiimad gaar ah u leh maadaama uu yahay fursad Atletico ku muujin karta awoodeeda inay ka gudubto caqabada ay ka haysata Real Madrid. Simeone kooxdiisa waxay diyaar u yihiin inay sameeyaan wax walba oo suurtagal ah si ay u gaaraan finalka Champions League ee soo afjaraan caqabadaha taariikhiga ah ay kala kulmaan kooxda cadaadka. Kulankan caawa 11 ayaa la daawan doonaa waana mid ka mid ah kulamada ugu xiisaha badan koobka dhagweynaha wareegiisa 16. Madrid ayaa wajahaysa walaac ku aadan ciyaartooyda halista ku jirnay sagaan lugta labaad tartanka Champions League haddii ay jecel qaataan kulanka caawa Madrid. Aurelien Tchouameni, Enrique, Eduardo Camavinga, Modric ayaa hore u qaatay 2 kaar jaalaha tartanka taa la micnaa in haddii midkood uu jaala qaato kulankan caawa uu seegi doono lugta labaad ee ka dhici doona Santiago Bernabeu. Tababara Ancelotti ayaa wajahaya caqabad ku aadan diyaarinta safka kooxdiisa isagoo tixgelinaya halista ganaaxa ciyaartooyda muhiimka ah. Waxaa la filayaa inuu si taxadar leh u maareeyo waqtiga ciyaarta ee xidigahan si looga fogaado inay sagaan kulanka xiga. Kulanka Atletico ayaa ah mid muhiimad oo saameyn ku leh rajada Madrid ee tartankan waxaana taageerayaasha iyo kooxda ka dhaxaysa rajo iyo walaac ku saabsan sida ciyaartooyda muhiimka ah uga fogaan karaan ganaax. Waxaa sidoo mudan ciyaartooyda sida Rudiger, Enrique aysan ku jirin liiska ciyaartooyda halista ugu jira ganaaxa maadaama aysan hore u helin 2 kaar oo jaala ah. Bellingham ayaa maqnaan doona kulankan maadaama calaamad uu qaatay kulankii ugu dambeeyay. Yaa adkaan kara caawa kulankan.